السلام عليكم. maanta waxaan idinla wadaagayaa mowduuc in badan igu soo noqnoqday su-aashiisu. mowduuca waxaa loo yaqaanaa cloud computing. Okay, so cloud computing muxuu yahay? Cloud computing waxa weeyaan traditional network aynu naqaanay ee kombiyuutarada sida loogu xidho kombiyuutarada kale si ay u wada shaqeeyaan ama ay fileska u wada share gareeyaan ee serverku maamulayay. maanta adduunku wuu isbedelay oo waa laga guuray. still uu shaqeeyaa laakiin meelo badan imika haddaad u fiirsato adduunku waxaad moodaa inuu sii guurayo online. So cloud baa wax walba la dhigaya, systemyadii cloud baa la geynayaa, network iyo waxyaabihii oo dhan shirkadihii cloud bay ku isticmaalayaan and everything is on the cloud. So cloudku waxa weeyaan, so marka cloud computing waxa weeyaan mechanismka amaba sida maaragtay la iskugu xidho networkyada cloudka. qofku isagoo cloud isticmaalaya ama isagoo internetka isticmaalaya. cloud kan laga hadlayo waa internetka basically. So in serverada iyagoo internetka yaalaan accessible laga dhigi karayo, database-kii la samayn karayo, systemyadii la dhigi karayo, network-kii iyo files-kii iyo waxyaabihii oo dhan cloud-ka ama internetka la dhigi karayo, accessible-na laga dhigi karayo, lana isticmaali karayo. Marka cilmiga shaqadaas lagu sameeyo ayaa la yiraahdaa cloud computing. Cloud computing ayaa la yiraahdaa. marka shirkadaha ugu caansan ee cloud computing serviceska bixiya waxa weeyaan waa shirkada koowaad waxa weeyaan shirkadan Amazon la yiraahdo oo AWS, Amazon Web Services, oo ugu weyn adduunka ee cloud serviceska iyo waxyaabahaas oo dhan bixisa ee serverada kiraysa. talabaad waxa weeyaan waa muxuu ahaa Microsoft Azure mid la yiraahdo oo iyaduna sidoo kale cloudka iyo waxyaabaha la xiriira databaseska, everything related to cloud ay iyaguna bixiyaan sidoo kale oo ay maaragtay kireeyaan. iyo Google Cloud. So kuwa ugu caansan badankooda Oracle isaguna waa ka afraad. marka cloud computing waxa weeyaan cilmiga cloudka accessible-ka looga dhigo si loo isticmaali karayo sidii networkyadii iyo waxyaabahaas oo dhan. marka qofka cloud computing ku takhasusa waxyaabuhu u baahan yahay waxaa kamid ah maaha qof maaragtay laga yaabo inuu programming skills iyo waxyaaba noocaas leeyahay, laakiin waa qof like networking iyo waxyaabihii si fiican u fahansan, infrastructure-ka amaba qaab dhismeedka systemyada iyo networkyadii waxaas leeyihiinna waa qof fahansan si maaragtay uu diyaarin karo infrastructure ama structure muxuu ahaayay qaab dhismeed ay shirkadu ku shaqeyn karto oo database-keedii leh, serveradeedii leh, storage-keedii leh, waxyaabihii oo dhan leh. waa qof diyaarin karaya weeyaan. marka khibradaha ugu waaweyn ee maaragtay qofku inuu yeesho ay tahay waxa weeyaan operating system basics-ka inuu garanayo, sidoo kale inuu maaragtay garanayo networking-ka basicskiisa iyo waxyaabaha inuu garanayo. marka shahaadooyin badan oo laga diyaariyaa jira oo ay ugu horeeyaan muxuu ahaayay shirkadan AWS oo shahaadooyin badan bixisa, sidoo kale muxuu ahaayay shirkada Microsoft shahaadooyin badan bay bixisaa. Assalaamu calaykum.